madaxweynaha maamulka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa gaaray caasimadda Hirshabelle ee Jowhar xilli xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo dhawaan uu magacaabay iscasileen sida faafahinta warkaasi ee Jowhar uga soo dirtay wariyaha telefishinka Somali News Xamdi Abuukar Xasan. madaxweyne Waare ayaa uga jawaabay imaanshaha caasimadda Hirshabelle ee Jowhar qayb ka mid ah dalabkii xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ee ku aadanaa in 7 maalmood gudaheeda uu madaxweyne Waare ku hor istaago mudanayaasha si wax looga weydiiyo halka ay ku dhacdo lacagaha canshuuraha deeqaha hay'adaha iyo lacagta dawladda Soomaaliya ay bixiso oo ay sheegeen xildhibaanada in xisaab la'aan la iska cuno. madaxweynaha ayaa albaabka ka xirtay warbaahinta waxaana uu sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu ka hadlo waxba xilli la wada sugayay inuu wax ka sheego kulan uu la qaatay wakiilka Amisom ee Soomaaliya iyo go'aankiisa ku aadan dalabka xildhibaanada. muddo shariica waa 7 cisho sida culimadu tii ama sheekh waxaan maqan ya sheekh noo saddex kale markii lagu daro ugu dambeyn waa 7 sida culimadu tii 7 cisho gudahood haddii madaxweynuhu uusan ku imaanin baarlamaanka isugu imaanayna gacantaagaan uga qaadayna wasiirada waxa loo magacaabo ognaana waa siyaasad laakiin yaana ka dhigan shub yaana ka dhigan madaxweyne wasiirka lagu magacaabo beesha xaq u leedahay muwaadin Hirshabelle ta xildhibaanada dastuurka ku ogolaa inaad qaato wasiir marka waxaan rabnaa yaasan istaakul isku noqon hadaan meeshaan keeno dood looga hadla madaxweynaha loo yeero oo su'aalaha la weydiiyo istaakul aan ugu noqonina madaxweynaha aan la xisaabtano haddii uu rabay guddoonka wadiiqadii loo mari lahaa barnaamijka sagac ee maanta hal iftiimay jidkii loo maraa u dhihi lahaa lacag ariga noo doonin madaxweyne anaga weydiisanaynay noogu yeer guddoomiyow intaas aan codsanaya cidda u yeerista mudan waa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka halkaan looga yeero ana la xisaabtamo waa haddii runta laga hadlayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labada gobolba ayaga ka soo kala jeedo ayagaana maxaa la yidhahdaa isticmaalo waxaa loo baahan yahay ayaga in loo yeero markii haddii u yeerista imaado waa bahdilantihiin idinka bahdilan nimankan guddoonka baarlamaanka ka bilaabaynaa waa isku wareejinaa waa isku imaanaynaa na dhaaf aan leenaano ismaan barro na codaynayo xildhibaan caadi oo dhexda naga fadhaan inaan tusaynaa ma garata isna kuwa kale intaan ka qabsaynaano ayaga maana dhibi kara madaxweyne ku-xigeenka sida cali cabdullaahi u wareejinay hadday is yidhaahdaan baarlamaankaad ka qabsateen oo qaar aad ka dhigteen wasiir haddii is yidhaahdaan cali cabdullaahi oo wasiira ka dhigay ayaa joogi lahay meeshaan khooraa joogta wallaahi billaahi tallaahi wasiiradii iswada casila inta tusana wallahi madaxweynaha aan u yeerna asagana lacagta dawladda dhexe $712 markii lagu dhiftay xildhibaanada 200 kun waaye 500 inay isku cunaan shabeellada dhexna isku cunaan hiiraana isku cunaan 2 kun la sii waayeen mudane guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa waxaan leeyahay 7 maalmood gudahooda madaxweyne ku-xigeenka alla horkeenay ninka watay seeraha saxanlana ku guursaday haddii uu nin sare yahay oo laga sad qaadayn saadaasha mooyee see kale ka yeelaa suuroobi mayso aniguna sideedaba sodoha rag kala qabo kuma tooba sheeg maalin walba waa yimaada waa gudbiyey jallaqsi u gudbay waa gudbay Jowhar waa ka tagay muxuu ah balweyne u gudbay halkaas uu gudbay madaxweynaha loo yeero dakhliga ajandaha si wax looga weydiiyo xildhibaanadaydu xamxamtu iyo sheekada xilalku ma helaysaan wuxuu xaakam idin qoray xaakam idin qor xaasid kama celin karo xulufaysi hoosiya xaglaha la iska qabana xurmo kuma helaysaan nin xaqiisii xaasiday garan waaye xaqiisii xildhibaan ma sheegtee xilka garab idiin suulan xisaabta baa ka dambeey ummadan xakaarani xaquuqdoodii maqan tahay ruuxii xil waqaado xisaaba ka dambeey Xamdi Dool Sam News Jowhar.